السلام عليكم كلنتو عنا wanaagsan meel kasta dunida ka joogtaan muuqaalkan kooban waxaan ka hadli doonaa dawooyinka loo yaqaan antibioticska oo warwar xooggan ka muujinayso hay'adda caafimaadka ku qaabilsan adduunka ee loo yaqaan WHO hay'addu waxay sheegaysaa in dawooyinkan ay aad ugu wararsan tahay maadaama dadku isticmaalayaan siyaabo khaldan waxaana dawooyinkan dhici kartaa in dadku isticmaalaan in lagu daweeyo xanuuno marka aan lagu taligelin tusaale kale in dadku isticmaalaan duriga ama hargabka kan oo marka uu keeno virus sidoo kale dawooyinka waxa loo adeegsadaa sida magacooda aan ka arkayno bacteria taasina waxay keenaysaa sida sheegtay hay'addu waxa loo yaqaan antibacterial resistance oo ah in dawadan ay iska caabido bacteriyada taas oo ka dhigan in haddii mustaqbalka loo baahdo in qofka lagu daweeyo dawooyinka noocan ah ay dhici karto maadaama jirku la qabsado isla markaana ay bacteriyada gaashaan ka samaysatay in aanay waxba tarin hay'addu waxay sheegtay in hadda ay ka fikirayso beddelka dawooyinkan tan oo sheegtay haddii 2050 la gaaro ay noqon karaan dawooyinkii gabahaanba kuwa markaa aan shaqayn karin isla markaana aan lagu sii kalsoonaan karin adeegsigooda haddaba marka laga hadlayo deegaanada Soomaalida waxaa dhacda in siyaabo khaldan loo adeegsado dawooyinka isla markaana uu qofku iska qaato muddo aad u dheer dawooyinkana inta badan dhakhaatiirta caalamku aad ay ugu warwareegaan in markaa ay qofku qoran talo keenta marka qaarkood xitaa qofku u baahan inay waqti dheer ku qaadato in loo qoro halka deegaanada Soomaalida ay dhici karto in qofku sida cuntada uu siibsado si lamida markaa uu adeegsado su'aalo kale haddii ilmo yar hargab ku dhaco ama sidoo kale waxa loo yaqaan durin waxa dhici karta in waalidku uga soo qaado farmasiga taasoo ka dhigan in markaa si khaldan loo isticmaalo dawadan tan waxay keentaa sidaan sheegnay in dawadan aanay mustaqbalka aanay shaqayn karin haddaba aad uga taxadir isticmaalka dawooyinkan kana fogow inta aad ka fogaan karto tani kula dambe nabadgelyo